بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الغني علي محمد waxaan bilaabi doonaa maanta casharkeena koowaad ee barashada aaladda kombuyuutarka. casharkeena koowaad ciwaankiisu wuxuu yahay maxaan u baahanahay in aan ka fiiriyo marka aan soo iibsanayo kombuyuutar. waa cashar aada u muhiim ah, qof kastoo raba inuu kombuyuutar soo iibsano saameyn ku leh. soo iibsanaydo uma baahnid inaad wadato saaxiibka amaba qof kale, keliya waxaad u baahan tahay inaad kombuyuutarka aad soo iibsanaydo aad ka jeegarayso 4 shay oo ah processor, RAM, system type iyo storage. Processorku waa maskaxda kombuyuutarka, waxaa kaloo loo yaqaanaa CPU. kombuyuutar shaqadiisu waxay tahay sidiisa dhanba in oo la geliyo xog ceelina isla markaasna uu kugu soo bedelo warbixin faa'iido leh oo la fahmi karo. Processorku waa maskaxda kombuyuutarka, waana meesha ugu badan ee uu ka dhaco actual processor iyo in xogtaadii loo bedelo warbixin. Processorka kombuyuutarka waxaa lagu cabiraa megahertz. Processor kasta midka kale oo ka megahertz badan yahay waa uu kasoo jawaab celi og yahay, waa uuna ka xawaare dheer yahay. sidoo kale processorka kombuyuutarka waxaa ka fiirinaysaa cores wax la yiraahdo oo ah inta processing unit uu leeyahay CPU kombuyuutarkaadu. kombuyuutar kasta kombuyuutar kale oo ka cores badan yahay waa uu ka CPU giisu waa uu ka processing units badan yahay. waxaad kaloo iska fiirinaysaa inta aanan ka bixin CPU-ga shirkadaha soo saara. waxaana ugu caansan 2 shirkadood oo la yiraahdo Intel iyo AMD. waxaana ugu tayo fiican shirkadda Intel sababtoo ah marawaxadda qaboojisa maskaxda kombuyuutarka oo loo yaqaano coolerka dhawaaqeedu saaid u gaaban yahay oo qofka isticmaalaya kombuyuutarka uu maqli karaba ama saaid u gaaban tahay, halka shirkadda AMD kombuyuutarada ay soo saarto coolerkeedu oo saaid u qaylo dheer yahay, laga yaabo qofka deriskaada ama saaxiibkaada guriga kula jooga in uu qayladiisa darteed uu kaaga guuro. waxaad kaloo ka fiirinaysaa kombuyuutarkaada waxa la yiraahdaa RAM. shaqadiisu waxa ay tahay file kasta ama folder kasta oo kombuyuutarkaada ka kacsan in uu RAM-ka dhexdiisa ka kaco. RAM-ka waxaa lagu cabiraa waxa la yiraahdo GB oo ah inta uu qaadi karo size-ka RAM-kaadu. waxay ku xiraan doontaa inta file ama folder oo aad kacsan karto RAM-kaadu inta GB oo uu leeyahay. RAM kasta RAM-ka kale oo ka GB-yada badan yahay waa uu ka wax kaydin badan yahay. kaloo ka fiirinaysa waxa la yiraahdo system type. system type macnihiisu waxa uu yahay kombuyuutarkaada halkii marba inta xaraf oo process garay karo. kombuyuutarku caadiyanba xogta waxa uu u process gareeyaa amaba uu kaydiyaa waxa la yiraahdo bit oo ah 0 iyo 1. kombuyuutarada waxay ku yimaadaan 2 nooc ah, 32 bit inuu yahay kombuyuutarku iyo inuu yahay 64 bit. 32 bit waxay tahay macnihiisu kombuyuutarkaada wuxuu process garay karaa halkii marba 4 xaraf, halka kombuyuutarka 64 bit ka ah oo process garay karo 8 xaraf. sidoo kale software-rada kombuyuutarada lagu shubo oo lagu isticmaalana sidaas oo kale waa ay leeyihiin 32 bit iyo 64 bit. software kasta oo 32 bit ah waad ku isticmaali kartaa kombuyuutar 64 bit ah. loo jiro waxa la yiraahdo storage oo ah diskaha kombuyuutarka, waana meesha ugu badan ee kombuyuutarka laga fiiriyo. walow ay jiraan storage banaanka oo la heli karo sida diska banaanka oo kale, haddana kombuyuutarka aad soo iibsanaydo waxaad ka fiirinaysaa storage-kiisu inta uu leeyahay. macnaheedu waxay tahay inta uu qaadi karo kombuyuutarkaada diskiisu. marka su-aasha ka jawaabidda mudan waxa ay tahay xagee baan uga hagaagayaa marka aan ka fiirino 4 shay. ma kombuyuutarka qolofkiisa aan furayaa, qaab noocee aan u ogaanayaa? waxaad u ogaanaysaa riix button-ka laga shido kombuyuutarada. kadib marka aad soo shido kombuyuutarkaadu waxa uu ku keeni doonaa shaashad noocaan ah oo ay saaran tahay recycle bin oo kaliya. mana ahan meesha laga ogaado recycle bin. si aad u hesho marka 4 shay oo aad u baahnid inaad ogaato, waxaa leedahay right click mouse-ka, kadib waxaad ku dhifanaysaa personalize. meeshan waxay ku xiraa doontaa marka window kombuyuutar ku jira. hadda waxaa ku jira window 10. haddii window 10 ku jira waxaad ka tegaysaa demis, kadibna waxaad kusii dhifanaysaa desktop icon setting, kadibna waxaad soo saaranaysaa check kombuyuutar. anigu waxaan u baahanahay kombuyuutar inuu banaanka igu soo baxo, apply aan leeyahay, kadibna okay. hadda kombuyuutar waa kana meesha 4 shay 3 ka mid laga ogaado
waa halkan. waxaad ku dhifanaysaa computerka, waad dooranaysaa, kadibna right click ayaa leedahay, kadibna click waxaad ku siinaysaa properties. waxaa ku keeni doonaa shaashadan. halkaas waa windowga computerka ugu jira, waa kaasaa window 10. systemyadan aan u baahana waa kana kow processor computerkan waxaa soo saara Intel. koorka computerkan uu iska leeyahay waa core i5. macnaheedu waxa ay tahay waxa uu leeyahay 5 processing units uu leeyahay. CPU cabirkiisu asagana waa kana waa 2.7 gigahertz. waxaad kaloo fiirinaysaa RAM asagana waa 4GB. macnaheedu waxay tahay computerku inta uu shidan yahay waxaa lagu kaydin karaa oo foldaro aad furan kartaa 4GB in la eg xaddigeedu. computerkan system typekiisu waa 64-bit operating system. meeshaan hoosena ayadana waa been qalin in computer lagu isticmaali karo ama la taaban karo waaye, labadaba ma lahan computerkan. waxaa noo dhiman hal mid oo ah storage. si aad u ogaato waxaad double click ku siinaysaa computer. marka aad ku dhifato waxa uu keeni doonaa meel noocaan ah. xasuusnaaw computerku haddii uu cusub yahay ma lahan C iyo D, keliya waxa uu leeyahay C. hase ahaatee waxa aad samaynaydaa sida cabirkeeda inta GB oo ku qoran ayaad fiirinaysaa. hadda computerkan C-diisu waa 104GB, halka D-diisu ay tahana 492GB. isku darkooduna ay keenayaan 595GB. haddaba intaan kaloo geeskan tiradan ahna waa 140GB inta ka firiiga ah. tanna waa sidoo kale 415GB, 491GB ayay firii ka tahay. waxaa jirta marka haddii wadadan ay adkaato waddo kaloo ka fudud aana tahay qof luqadda yaqaana ingiliishka, waxaa la socda computerada markii lasoo iibsanayo warqadaas oo ku cadiyiin computerka ramkiisa, processorkiisa. halkaas ayaad ka ogaa kartaa si fudud adiga oo furin amaba aada soo daarin computerka. waad ku mahadsantahay daawashadii videoan. la soco fiidiyoyaasha kale iyo casharada dambe. casharada markasta waxaan ku salay doonaa baahiyada bulshada ay u qabaan aaladda computerka.